السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تيار ديدا كحرن كانال كينا نسير جرافيكس مركلي اسكو سو نقط وعن muuqaal keena ama casharkeenan maanta waxaynu ku baranaynaa sida loo sameeyo CV professional ah inaga oo ku sameyn doona Photoshop hadda CV-ga hortaada kaaga muuqda aad arkaysa adiga anigu isla sameynaynaa balse ka hor intayna u guda galin casharkeena fadlan haddii aad ku cusub tahay kanalka oo ay tahay marka ay kugu horeysay aad soo booqatay taawo calaamada gaduudka ee subscribe button-ka sidoo kalena gambaleelka furo si muuqaal waliba ama cashar walba aynu soo gelino kugu soo dhaco sidoo kalena muuqaalka dhamayso si laba midoodba aad go'aankeeda u gaartid ilaan adiga iska leh haddii aad ka hesho casharka waa la gareynaysaa haddaan kelin waa isla gareynaysaa haddii aad rabtid waa nagu boodaysaa marka fadlan hay nagu boodin oo la garey haddii aad ka hesho muuqaalka haddii aanad ka helin isla garey labaduba inaga muhiimad gaar ah inoo leedahay oo dabcan YouTube-ka like iyo dislike-tuba muuqaalka si iskiisa ayuu ku sii gudbinayaa ku sii baahinayaa marka CV-gan ayaa anigu adiga isla sameynaynaa haddii hortaada kaaga muuqda dabcan CV-ga marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay markaad shay rabtid inaad design gareysid ama sample aad aragtid in isla sambarkaasi aad keeni rabtid waxaa la sameeyaa horta marka ugu horeysa waxaa la leeyahay waa la fiiriyaa horta imisa color ayuu ka kooban yahay xogtiisa qaabkay u diyaarsan tahay ayaa la isweydiiyaa marka aan bal faahfaahin ku siiyo hadda halkan waxaa kaga muuqda in CV-gan ka kooban yahay 3 color dabcan waa sida ay indhaha u jeedaanba ay ku buuqdaan dabcan waa midabkan iyo midabkan iyo midabkan inta kadib halka kore waxa inoo qoran Stephen Khan oo magac yahay sidoo kale title-ka baad hoos ka dhiganaysaa halkan about yar adigu kugu saabsan baad dhiganaysaa anigu hadda example yar wax iska sample ayaa ii saaran dabcan waxaan dhan waa wada sample waa work skills-ki language-ki contact-ki reference-ki education-ki work experience-gaaga professional achievement-gaaga waa laga yaabaa CV kale oo yacni ka duwan ayaad jiri karaa design ahaan ka duwan xogta qaabka midkan hadda uu xogtiisa u soo bandhigay ka sii yacni muhiimsan oo ka sii duwan soo marka midkan lafirkiisa waa wuxuu ka mid yahay CV-yada professional-ka ah adiga iyo anigana aan rabno maanta inaan isla sameyno kuna sameyno software-ka Adobe Photoshop anigu waxaan isticmaalayaa balse aan ku xasuusiye waa 2015 waa kuwii hore all the way adigu laakiin waxa laga yaabaa 19 ina haysatid midkan haysta ina haysatid 20 ina haysatid 2020 21 ina haysatid marka waxay ahaataba kulay muhiimadda waxa waaye in aad ila sameysid aan isla socono marka ugu horeysa waxaan leenahay control n new document halka qore waxaan ku qoranayaa name-ka ah CV okay halkan document type-ka waa international paper halka size-kana waa A4 kadib waxaan leeyahay okay markaan dhaho halka layers-ka imaw qufulka ka fur layer-kan oo background-iga dushiisa laba mar click ku si color-ka background-iga aan CV-ga hadda aan soo arkaynay sample-ka ahaa aan rabnaa isla isaga inaan sameynay color-kiisa aan u qaadsiino waxaad imaanaysaa marka qaybtan color overlay ayaan ku dhufanaynaa ayaan tick saaraynaa isla markii color-ku qaadanaya waayo default ahaan ayuu anigu iigu diyaarsan yahay aan marka ku tuso aan marka isla color overlay aan dushiisa click ku siiyo marka click ku siiyo halkan aan u soo beerno marka waa kana meeshan haddaad furtid sanduuqan yarka ah haddaad click ku siisid waxaad arkaysaa isla sanduuq kale ayuu ku keenay oo color picker leera color picker-kan marka meesha ugu hooseysta afar geesta ku taalo wuxuu kugu sheegayaa color-kan code number-kiisa ayuu kugu sheegayaa marka haddii aad u baahan tahay isla color-kan haddaad u baahan tahay anigu hadda wax ku sameynayo code number-kan fadlan waxaan ku leeyahay code number-kan qoro adhoodi dambe background-iga markaas sidaan aad يعني markaad background-iga aad heerarkan soo wada martid ugu dambeyn meeshan kili marka oo ku basti garee kadibna okay uu ku qaadanayaa oo color-kan ayuu ku qaadanayaa isla haddana aan ku laabano kani waa tesseraha aan u isticmaalay tesseraha haddii aad u baahan tahay waxaan soo dhigayaa qaybta hoose description-ka iyo qaybta comment-iga hore waxaan ku soo dhigayaa WhatsApp group-keena iyo Telegram group-keena halkaas aad kala degaysaa sawirkan haddaad u baahan tahay haddii kalena sawir kale aad heli kartidna waa ku isticmaali kartaa okay midabkan hore marka aan rabaa inaan ogaado
code numberkiisa aan korkiisa halkan ayaan ku dhifanayaa kadib color pickerka ayaa ii imaanaya markaas saa u baxo marka qalin yar ayaa ii soo baxaya qalinka baan korka click ku siinayaa dabcan waa ujeedaa waa 053F7F waa code numberka isagaas ayaan highlight gareysanayaa deedna waxaan leeyahay control C waan koobiyeynayaa oo okay aan iska dhahayaa midkan aan ku soo laabto marka sambalkeygii qaybta layerska ku noqo waxa leedahay layerkan background-iga si uu iga dhaqdhaqaaqin dhaqdhaqaaqas inuu u sameeynin waxa leenahay inoo xir qaybta qufulka ku dhufo hadda ma dhaqdhaqaaqayo oo ku xiran yahay soo marka qaybtan imaw oo rectangle toolka yani waxa imaada qaybtan shapeska imaw shapekan hadda rectangle toolka ah ayaan soo qaadanaynaa halka kore ku jiid si ugu soo jiid dabcan marka halka ku deysid wuxuu ku soo saarayaa dialog boxkan ayuu ku keenayaa midkan hadda waxaan leeyahay mar rabo ayaan leeyahay halka iska taabo qaybtan dabcan waa ujeedaa colorska waa ujeedaa colorka aan isticmaalay waa 053F7F okay soo marka halkan waa stroke halkan waa fill stroke ayaan iska xiraynaa marka hore kadib qaybta fillka ayaan ku dhifanayaa fillka markaan ku dhifto qaybtan waxaa la yiraahdaa waa recently used colors kalarada ugu dambeeyay aan isticmaalay ayuu halkan iga tusayaa marka colorkii aan rabay hadda aan code numberkiisa soo save gareysanayay halkan ayuu ii yaalaa dabcan waa colorkii ugu dambeeyay aad isticmaalay way kalaradan ujeedid tixan safka kore ah waa colorku ka dambeeyay waa midkaana ugu dambeeyay kana ka sii dambeeyay midkan saas ay ku soo socdeen marka hadda midkaana ugu dambeeyay isagaas ayaan qalinka click ku siinayaa bal arag waa kaasa waa uu isbedelay dabcan shape-kii aan soo abuurtay colorkii aan u rabayna sidaas ayaan ku helay waa tahay aan mar kale ku noqdo colorkan ayaan rabaa haddana waxaan leeyahay qaybtan ayaan furayaa waxaan leeyahay color pickerka ayaa ku imaanaya halkan haddaan qalinka click ku sii dabcan tiradan waa isbedelaysaa hadda waa 053 Soomaan waxay noqonaysaa 052F5F okay bale colorka saasaan ku haystaa aan ku soo noqdo markaa CV-gan midka hadda aan dhaha isagana right click aan sidaas haddana soo abuurto shape kale oo rectangle tool aan halkan ka soo baxsado oo aan halkan ku soo jiido markaa sidaas u soo abuurto dabcan wuxuu ii keenayaa qaanadii yareyd waan iska kansalayaa hadda waxaa ujeedaa colorkii ugu dambeeyay ayuu igu apply gareeyay soo marka ma rabi waxaan tagayaa qaybtan stroke-gana wuu iga xiran yahay dabcan qaybtan ayaan tagayaa fillka kadibna waxaan leeyahay colorkan ayaan rabaa soo marka waad ujeedaa colorkii hadda ayuu ii keenay dabcan colorkii waa uu ii keenay soo uma jeedid waa colorkan iyo colorkan soo marka waxaan leeyahay si aan shape-kan geeskan u yeelaa dabcan si aan marka shape-kan kale uga hoos mariyo waxaan taabanayaa control iyo bracket ayaan taabanaya ama waxaan leeyahay qaybtan waxaa imaanaya layerska soo kan soo maahan inuu asagaysan ku hubinaya waxaan leeyahay right click waxaan leeyahay yani qaybtan isha ayaan xirayaa oo waa isaga kor ayuu jiraa marka hoos mari saa u jiid meesha ku daa hadda hoos ayuu maray waa fahanti Soomaan waa tahay intaa markaad samaysid sawirka isagana waa another shape ayaa marka hore diyaarsanaysaa oo ah white shape rectangle-kan ku soo jiid halkaa igu jiid halkaa ku ekee halkaa saas ku ekee kan iska xir halkanna white kala ku fur haddaan dhaho marka hadda sawirka soo qaad marka hore halkan keen saas right click ku dhaho halkan create clip mask ku samee dhexgeli shift qabo sidaa u yaree waa sidaa markaa u yareysidna halkaa ku daa intaa hore waa isla sameynay waa tahay ardayahay intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii ku saabsanaa sida loo sameeyo CV professional ah qaybtiisii koowaad ama part 1 inta aynu qaybta xiga ama part 2 aynu ku kulmi doono
waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum.